shir looga hadlaya arrimaha abaaraha Soomaaliya iyo sidii loogu gurman lahaa dadka ay saameysay abaaraha ayaa lagu qabtay magaalada Riyadh ee caasimadda dalka Sacuudiga. Shirkan oo soo qaban qaabiyeen hay'adda Bisha Cas ee dalalka Carabta iyo Lanqeyrta Cas ayaa waxa Soomaaliya uga qayb galay la taliyaha koowaad ahna siyahayaha safaaradda Soomaaliya ee dalka Sacuudiga Mudane Abshir Warsame Diirshe waxaana shirka si gaar ah looga waramay xaaladda ba'an ee saameynta abaaraha iyo sidii hay'adaha Bisha Cas iyo Lanqeyrta Cas gacan uga geysan lahaayeen gurmadka abaaraha Soomaaliya. Mudane Abshir Warsame Diirshe oo shirka ka hadlay ayaa ugu baaqay hay'adaha samafalka inay garab istaagaan dadka abaaraha iyo colaaduhu waxyeeleeyeen ee ku dhaqan gobolada dalka Soomaaliya. wuxuuna kalsooni ka muujiyay in caalamka uu gurmad degdeg ah sameyn doono. Dowladda Federaalka Soomaaliya oo kaashanaya hay'adaha gargaarka ayaa dadaal xoogan ku bixinaysa sidii loo xoojin lahaa taageerada iyo qaramida gurmadka abaaraha.